waxaan ahay Mustafa Sulub halka naga daawanaysaana waa Sulub official ku soo dhawaada barnaamijkan oo ka diyaarinay magaalada Boorama barnaamijkaas oo ku saabsan magaalada kulmisay ardayda Soomaaliyeed waxa igala qayb qaatay dhalinyaro ka timid gobolada Soomaaliya halkana waxa ay gar fadhiyaan Cabdilaahi oo kamid ah oo ka yimid gobolada bariga oo kaasoo ka hirgeliyay uu markii hore u yimid waxbarasho kana hirgeliyay ganacsi oo aan deegaanka gobolka Awdal aan hore loogu arag ku soo dhawaad Cabdilaahi waan ku dhawahay Mustafa Sulub waan soo dhaweynay kanaalka cusub ee Sulub official aad baan u mahadsantahay adigoo magacaaga ku bilaabay jaamacadda Dhigatola magacaygu waa Cabdilaahi Maxamed Cabdilaahi waxaan dhigtaa jaamacadda Camud University waxaan ka yimid gobolka Bari gaar ahaan magaalada Boosaaso maxaad kala kulantay muddadii aad joogtay Boorama runtii Boorama ma dhihi karo maanta wax weyn oo caqabad aan kala kulmay laakiin waxaan dareemayaa inaan waxyaabihii aan u imi qayb kamid ah ee halkan igu suurta gashay sidoo kale Boorama waxaan kala kulmay waxyaabo aan kala kulmi jirin gobolada kale ee Soomaalida sababtoo waxaan la kulmay dad maxay hayto saaxiib u ah sharaf iyo maamuus dad ay ku weyn tahay Soomaalinimadu iyo walaaltinimadu sidoo kale iyo kalgacaylka ay u hayaan inay soo dhaweeyaan ummad kale marka anigu isma dhihi karo wax weyn baad kala kulantay caqabada maxaad ku dooratay inaad magaalada Boorama wax ka barato والله horta magaalooyinka maxay hayto Soomaalidu degto dhan waa isku mid laakiin haddana iyagoo sidaa tahay wax ku kala duwan tahay maxay hayto dhanka waxbarashada Boorama waxay noqotay magaaladii ugu horeysay ee Soomaaliya oo dhan isugu timaado iyagoo waliba u yimi hadaf gaar ah iyo hadaf ay ka wada sameeyeen dhamaantood taas oo ay jaamacadda ka bartaan maadaama ay ku taalo jaamacadda geeyiga ama intay Soomaalidu tagtay ugu magac weyn sidoo kale geeska Afrika bal dhihi karo inay ugu tuumin tahay waana jaamacadda Camud University oo ah hoyga aqoonta ee ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan deegaanada ay ku taalo ee Soomaaliland saddex qodob ilaa laba qodob ma noo sheegi kartaa ay kaga duwan tahay magaalooyin kale ee Soomaaliyeed Boorama wallahi kulli dhalinyartu iyagu meeshii tagaan waa u meeshoodii oo wax saas iyagu kama sheegi karaan sababtoo ah qof weyn u baa sheegi karo wuxuu magaalo uga doortay laakiin dhalinyartu meeshii tagaan basi caadi ahayd ugu noolaanayaan marka Boorama waxaan ugu doortay waa meelo maxay tahay cimiladeedu ay xilli kasta wanaagsan tahay cimilada wanaagsan sidoo kale dadka ku nool dad maxay tahay dad la dhaqanka aad u yaqaan sidoo kale waxay aad magaalooyin kale uga duwan tahay waa amniga iyo maxay tahay horumarka ay ku sii talaabsanayso maanta ka sii dambaysa bulshada reer Boorama sidee ku soo dhaweeyeen markii aad magaalada Boorama timi wallahi markii aan magaalada imi intan kulli waan ka yaryay inta oo 2 sano iyo barbay ahayd wallahi waxaan la soo dhaweeyay dadka madaxda loo soo dhaweeyo si lamid ah oo kale waxaan u ahaa qof magaaladiisii yimi oo magaalo kale ilama ahan baynaan magaaladii aan ka imi aan wali ka soo dhex baxay marka Boorama waxay noqotay magaaladeedii labaad marka laga yimaado magaaladeedii koowaad dad fiican dad sharaf leh intiba waan isku jiraan dadku joogay marka si fiican baa loo soo dhaweeyay waan dhihi karaa ma jirtaa caqabado aad kala kulantay muddadii aad joogtay Boorama wallahi wax caqabada aan dhihi karo imika aan kala kulmay ma jirin laakiin waxaan dareemayaa waxyaabo badan oo aan meeshii aan ku haysan xaq ku helay marka wax caqabada aan kala kulmay hadaba sheekada xiisaha leh waxay tahay adigoo ka yimid gobolada kale ee dalka inaad ka hirgelisay gobolka Awdal ganacsi aan hore magaalada aan uga jirin hadaba bal nooga faahfaahood ama nooga warbixi qaabka aad u bilowday ganacsigan iyo fikirka goorta kugu dhashay horta fikradaas ganacsi way jirtaa oo maxay hayteen wayna nagu dhalatay marka fikrada ganacsi waxay ahayd fikradii ugu horeysay ee geeyiga Soomaalidu ama geeyiga Somaliland aan hore uga jirin taas oo waxay tahay waxay dadku inta badan yaqaan meelahan xawaashka ama adeega oo kale shirkad xawaash oo wuxuu shaqeynaysaa qaab casri ah oo ka duwan maxay hayteen sida ay u shaqeeyaan ama la mid ah sida wadamada ka horumaray u shaqeeyaan fikradan waxay ku saabsanayd in hooyadii oo xaafadda joogta ay soo dalban karto adeegii uga baahneed oo maxay suuqayna u timaado iyadoo waliba loo ilaalinayo waqtigeedii sidoo kale wax maahay caqabadihii ay kala kulmi jirtay meelaha ay ka soo adeegatona aan u soo yareyn marka fikradaas
hirgelinteedu waxay nagu qaadatay waqti badan analyse gareynteeda istiraatiijiyadihii lagu shaqaynayay iyo waxyaabo badan laakiin alxamdulilah ugu dambeyntii waxaan ku guuleysanay inaan hirgelino iyadoo muddo haatan laga joogo bilooyin aan shaqada wadno oo aan wax caqabada kala kulmin kambaniga cusubna aanu bixinay magaciisa adeegsame bushari ama adeegsame grocery marba sida u yaqaaniin oo maxay ahayd bulshada marka fikradaas qaabkaas baan u abuurnay welina waan wadnaa waxaan rajaynaynaa inaan meeshii aan ugu talagalnay aan soo taabano adeegsame waa bushari cusub oo aad ugu talagasheen inuu xaafadaha adeega u geeyo hooyooyinka ma jiraan maadaama bulshadu aanay hore u aqoon oo ay bulshadu maamooyinka ay usoo doonan jireen sariibada adeega maalinlaha bulshadu inay macnaha caqabada ay kala kulmeen ama sida ma la qabsadeen kahor inta aanan fikradda bilaabin ganacsi waxaan usoo taxliilinay muddo badan ilaa 2 bilood 3 bilood ku dhow inaan horta wixii dadka ku tababarno dadkii aan maxay tahay wacyigelin ku sameyno si ay mataqaanaa maadaama aan joogno de gobol xadaarada inta badan laga yaqaano oo gobolkii awdalaha magaalada madaxiisa Boorame si fudud weyn oo la qabsadeen dadkii maadaama ay dadku inta badan ay ku xiran yihiin social media ay maalin kasta warar badan oo isku soo daba taxayaan ganacsiyo cusub oo la hirgelinayo marka isna wuxuu la mid ahaa ganacsiyadaas cusub ee dadku dhagahooda ku soo dhacay bal iska badaayay inaan maxay hayto caqabad kala kulano maaha waxaa noo suurtagashay inaan helno dad badan oo nagu taageeray fikirkan walow inta badan dadku isweydiiyaan hooyooyinkii suuqa ay ma jiraan baa caqabad ku noqoteen dad badan baa xoog caqabadaysan laakiin waxaan aaminsanahay anagu qaabka aanu shaqeyno iyo qaabka hooyooyinku suuqa u shaqeynay kala duwan yihiin marka iyaga hooyooyinka istiraatiijiyad gaar ah u dejinay iyagu maxay shaqadooda maalinlaha ay hore u sii wadan karaan anaga laftirkeeguna shaqadiisii hore u socoto istiraatiijiyad gaar ah baan ku shaqeynaa dhinacayga waxa fadhiya arday ka timi gobolada kuwaasoo aan kusoo dhaweynayo kusoo dhawo walaal aad baan ugu dhawahay sulb adoo magacaaga ku bilaabaya waa anigoo ah Abshir Khaliif Aadan gobolkaad ka timi jaamacadda dhigato waxaan ka imaaday gobolka Banaadir magaalada madaxiisa Muqdisho waxaan dhigtaa jaamacadda Amuud engineering civil engineering baa ka bartaa su-aashan ku weydiinay waxay tahay maxaad kala kulantay magaalada Boorama muddadii aad joogtay wallahi waxa qabada kala kulmaysan jirin waa magaaladeedii labaad maxaad ku dooratay inaad magaalada Boorama wax ka barato wax magaaladan ku doortay magaaladan ku imaado waxay tahay markii koowaad yar walaalkay meesha waxa loo keenay 2012 scholarship oo ku helay marka asiga marka iga faalooday Boorama iyo mataqaan qaabka waxbarashada iyo qaabka loo noolaanayo saas baan ku imaaday Boorama maxaad sileedahay magaalada Boorama 2 qodob ilaa 3 qodob oo ay kaga duwan tahay magaalooyin kale Soomaaliya horta waxay kaga duwan tahay waxay tahay jibi ahaan magaalooyin kale ka qowdahay oo mataqaanaa waxa way jibi ugu noolaa karo xagga dhalinyarnimo midda labaadna waxa way waa nabadda saddexaadna waxa way waa magaalada ku xigay aqoonta oo saddexdaas waxa way waa height gobolada kale ugu duwanta markii aad Boorama timi bulshada reer Boorama sidee bay ku soo dhaweeyeen horta niyo waxa qof walba waxa bulshada uu Soomaali sida isku barto adig hadaa taa qof iska gaaban oo mataqaanad waa inta kula gaaban oo kaliya mataqaanad baranaysa hadaa taana mataqaanad qof iska bulshaabi oo mataqaanad dadkaas waa caadi la noqonaysa marka aniga iska qof iska dhexaad mana aamsani aadna bulshada uma marka magaalada waan la haystaa sax oo waa la qabsaday ma jiraan caqabadooyin aad kala kulantay muddadii aad joogtay magaalada Boorama maya wallahi si ardahan oo xushmay horta magaalada dhalinyarada oo dhan marka dhaana la dayabanaanay yani aad bay noo soo dhabeeyaan meeshan ka imaanay xaaladeen waxaan kala iswareysana marka waxaan kala kulmaata dhigi kara ma jiro jaamacadda Amuud baa dhigataa jaamacadda Amuud baa dhigtaa magaalada Boorama way joognaa way jiraan jaamacado kale baa jira magaalada Boorama maxaad ku dooratay jaamacadda Amuud horta niyo marka koowaad run marka laga hadlo waxa way Boorama jaamacad kaliyan ka maqlay ku taalo waxay mataqaanaa Boorama Amuud markan magaalada imaaday mataqaanaa magaalada la qabsadaan arkay in jaamacada ilaa 10 gaarayaan ama ka badan yihiin marka systemkan ku imaado waxa way hore ku sheego yar walaalkay la keenay iga faalooday oo mataqaanaa yani jibigii waxyaabo kale saas baa ku doortay waxaan dhigtaa jaamacadda Amuud waxaan dhigtaa kulliyadda business public administration waxaan ka socdaa gobolka Galgaduud caasimadda tahay magaalada Dhuusamareeb
maxaad kala kulantay muddadii aad joogtay magaalada boorama wallaahi intaa magaalada boorame aan joogay wax caqabada oo aan kala kulmay ma leh waxaa kaliya magaalada boorame aan marka ay mid waxaan islahaa waa magaalo aadan u dhalan markaa tagtid dadkeeda aada garanayn si kale ku noqonaysaa laakiin hadda markaa magaalada boorame ay mid maasha allah si dad waxa u yimid soomaalinimada jecel oo si fiican lagu soo dhaweeyay maxaad ku dooratay inaad magaalada boorama wax ka baratid wallaahi wadanku uu jaamacado fara badan uu leeyahay wallaahi magaalada boorame waxa aan ku doortay horta boorame markaa maqashid magaaladii tacliinta marka labaadna waxaa ku taalla waa jaamacadda ugu weyn ee jaamacadda Camuud oo marka ilaa dugsi sare aan dhiganayay waxaan ku haminayay inaan jaamacadda Camuud galo shahaadadeena aan qaato ma jiraan laba saddex qodob oo magaalada boorama kaga duwan tahay magaalooyin kale ee Soomaaliya daan dhowr qodob aan ka taabto wax badan ay ku duwan tahay waan arkay laakiin dhowr qodob aan ka taabto magaalada boorame waa meel cimilada aad u fiican tahay si dadka hore soo sheegeen marka labaadna waa meel tacliinteedu aad u sareyso oo qofka marka uu intaas sano joogo ka qalin jabiyo uu ka duwanaanayo dadka jaamacadaha kale ka soo baxay oo magaalooyin kale ka yimid ma jiraan intii muddadii aad ku nooleed magaalada boorama caqabado ama dhibaatooyin aad kala kulantay magaalada wallaahi runtii ma jiraan wax caqabado oo aan kala kulmay waxa kaliya oo aan markaa magaalada imid aan ku soo dhawaaday dad dhalinyaro u heeloon inay soo dhaweeyaan dhalinyarta ka timid gobolada kale Soomaaliya waan isleeyahayna waa magaalo aad iyo aad u wanaagsan oo wax caqabad aan kala kulmayna ma jirto qaabkee bay ku soo dhaweeyeen dadyow ku nool magaalada boorama runtii magaalada boorama waxaan markaan imid dhalinyaro inta badan ba markaan jaamacadii galay raggii gacan qabtay magaalada hore i galiyay mar walba magaaladii iyo hooyaashii iyo dadkii xaafadii kala baray waxay ahaayeen rag magaalada u dhashay ismana dhaheen magaalada maanta marka ay midna hadartaanna waa magaaladeedii waxay ii noqotay magaaladii aan ka imid oo kale ay ii noqotay maanta aadna ugu faraxsanahay dhalinyartaasna waa meel walba jooga ka salaamaya